السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ملكستو جوجتا كسو دوادا بروجرام كساب سن مالك دنيرada adduunka barnaamijkan waxa idin la socodsiin doontaa aniga Isra Ibrahim Aadan Isra Habi waxaana marti iigu ah Dr. Naciima oo kamid ah aqoon-yahaniinta haldoorka deegaanka Soomaalida ahna agaasinka hay'adda horumarka geeska Afrika ama horumarinta dhexe geeska Afrika kusoo dhaw barnaamijkan Dr. Naciima وندوهي إسرة thank you الله داوديال برامجكان maanta aan ka hadlayno waa maalinka udub dhaxaadka hal abuurka iyo koritaanka rajada dhalinyarada udub dhaxaadka hormuudka iyo isbedelka wanaagsan ee waara ee dhalinyarada soo dhaw Naciima maxaad ka leedahay والله maanta aad baan u faraxsanahay waxaan dhihi karaa waa maalinteeni waa maalintii dhalinyarada doonka maalin aan ku faraxsanahay juhdiga bixinay dadaalkan bixinay aan u dabaal degayno weeyaan maanta marka maalin farxadeed maxaad ka leedahay maanta waa maalinta dhalinyarada adduunka waa 12ka bisha August 2025 maanta waa maalinka dhalinyarada waa maalinkeeni waa maalinkii dhalinyarada soo kacaysa dalkeena dalka Ethiopia Naciima meeshayna ku suganahay waa stuudiyahanaga aan ku leenahay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia meeshan ayad maanta noogu casuumantahay waa maalinkii dhalinyarada waa maalinkeeni waa maalinka farxadda waxaynu u baahanahay inaynu ka hadalno barnaamijkeenu ku saabsan yahay maanta waa maalinkii dhalinyarada waxaynu leenahay dhalinyaradeenu si ay horumar u gaadho dhalinyaradu maxaad ka leedahay Isra waxaan leeyahay dhalinyaradu waa furaha horumarka furaha xalka waara waa xalka dunidu ay leedahay waa dhalinyaro sababtoo ah tirada u badan dadka caalamka ku nool waa dhalinyaro saas daraadeed baa loo astaameeyay maalin gaar u ah dhalinyarada adduunka oo ah 12ka bisha August marka dhalinyaradu maxay yihiin waa awood waa karti waxa way horumar waa waxqabad waa energy aad u weyn oo xoog leh oo u baahan in laga faa'iideysto Naciima ha ku soo noqdo su'aashada dhalinyaro badan oo waxa jirta aqoon-yahaniin oo wax baratay oo jaamacadaha ka soo baxday haddana isla markaas ay tahay aan wali shaqaynaa ama laga yaabo inay xafiis shaqo ka sugayaan ama company kula shaqo ka sugayaan ama iyaga ay wali shaqo sugitaan yihiin laakiin ay wax barteen aqoon-yahaniin yihiin kuwaas iyaga maxaad kula dardaarmi lahayd horta waxaan u sheegayaa dhalinyaradaas inay yihiin wadankii oo dhan inuu iyaga uu ku taagan yahay sababtoo ah waa horta tirada ugu badan waa xoog ugu badan waa aqli iyo karti dhalinyaradaas marka maxaa looga baahan yahay koow waxaa loo baahan yahay ilaalinta deegaankoodii oo ah inay ka qayb qaadataan nabadda dhisidda bulshada horumarka iyo cadaaladda dhalinyarada wax baratay waxaa jiro tiro badan oo dhalinyaro ah wax baratay oo wadankeena ku sugan oo master PhD ilaa jaamacad ka baxay haddana fadhiya oo kaliya sugayo in la magacaabo ama boos xafiis dawladeed lagu qoro taana dib wax laga fiican yahay kuwaas waxa u fiican oo dhihi lahaa aniga sida adduunka iyo hadda aan u shaqeeyo ama macalinku u shaqeeyo ma sugaan magacaabis mana sugaan in meel lagu qoro mid walba isagoo arday ah wuxuu haystaa fikir ama barnaamij isaga la imaaday fikir la imow wax qabad adig gacan sameeyso fikir ama idea ma qorshe muayana oo cusub qorshahaaga marka wax u raadinaysaa in laga gacan qabto taasna wax cusub oo loogu soo dhaweynayo laakiin kulligeen intaasoo milyan oo qof haddii dhammaan aan sugna xafiis xukuumadeed ama dowladeed oo wax dee laga fiican yahay saas aaminsanahay kana ima aha
dhalinyaro ka hadda waxaa jirta dhalinyaro hadda Facebook baa jira TikTok baa jira qof oo dhalinyaro waxaad arkaysaa maanta si usoo toosay ilaa caawa TikTok la daawanayo qof kale oo social media jooga qof kale oo TikTok qabiil caymina mid ka sheekeynaya dadkaas maxaad kula dardaarmi lahayd iyaga horta waa kuwaas waxaan u sheegayaa 24 saac oo maalinkii markuu qofka soo tooso waxaa loo baahan yahay inuu qorsho ku soo tooso 24 saac waxay kaaga baxday waa inaad fahantaa ama aad ogaataa maalinkii ama markaad aad sii saxaysaba habeenkii waa inuu jadwal oo bari waxaad samayn lahayd oo ku yaala 24 saac waa inaad kala qaybisaa maxaan qabanayaa maxaan sameynayaa markuu dhamaado maalinkii waa inaad buugii qalin soo qaadataa maxaa maanta faa'iido ah oo soo heshay laakiin maalin walba 24 saac haday bela macna kaga dhamaato dee wax horumar aad gaaraysid mala 30 sano 50 sano gaaraysa adigoo wali stop meesha taagan soo qofku waa inuu lahaada qorsho maalmeed qorsho isbuuc qorsho bil qorsho sanad qorsho 5 sano ah inuu yiraahdo ma ka soo dheelaha aniga maanta waxa loo dabaaldegayaa maalinka awooda dhalinyarada iyo wax urintooda iyo ka go'naanshiyahooda sameynta mustaqbal ifaya dhalinyaro hay maxaad ka leedahay waxaan leeyahay dhalinyaro ha ka waaban in aad noqoto hogaamiye sameeya isbedel u wanaagsan naftiisa dadkiisa iyo dalkiisa maalinkan waxaa loogu dabaaldegayaa awoodda wax urinta iyo ka go'naanshaha mustaqbal ifaya oo dhisan maanta waxaynu u dabaaldegaynaa nicimo oo maanta ahayd maalinka 12 bishan August 2025 maalinka dhalinyarada adduunka halkan waxaynu u taagnay barnaamijkaasi inaan dadka la wadaagno markani waa gabagabadii waxaynu maraynaa gunaanadkii barnaamijkan inuu soo wadnay maanta dhalinyarada marka ugu dambaysa maxaad u dardaarmi lahayd horumarkooda inay kor u qaadaan waxbarashadooda aqligooda dhisidooda iyo waliba garadkooda sidii u kobcin lahaayeen heersan u gaari lahaayeen haddana Afrika nahayna aynu caalamka u gaari lahayn horta Israel waxaa farxad gaar ah in maanta magaaladan aan joogno Addis Ababa meesha u sareysa oo dalkan joogo inuu maanta xilka noo hayo qof dhalinyaro ah oo ah دكتورنا دكتور أبي أحمد وأنا دليرة السنة ككلية معها دمان ضدك حكم كنوهايو وضد دليرة تاسنا وحي وحكيني سا إنه يفهمان وحي ربان دليرة أو سومرك واحد لوجو فرحة دردارن كأن بحنا يوحوية qof kasto oo idin kamida dhalinyaro ha iska fogeeyo inuu cabsado inuu baqo inuu ma awoodo dhaho xagga isaga leexiyo waad awooda waan awoodna anagu dhanna waan awoodna kaliya bilow inay bilowaan socdaan qorshe la yimaadaan adkaysna lahow waana loogu garab taagay maanta aniga ahaantay markaan saa u imaado meeshan xafiiska u horeeyaan galay waa lagu soo dhaweeyay waa la gacan qabtay waana la igu faraxsanaa soo waxa ka cabsan meel walba tag waxa u baahan tahay sheeg waa lagu soo dhaweynayaa hore u socda insha Allah kulligeen nicima maanta waxaynu soo wadnay barnaamijkeennii waxaynu joognaa guntiga gunaanadkii barnaamijka ugu dambeyn dadka maxaad ku macsalaameynaysaa maadaama barnaamijkan aynu soo wadnay waxaan u dabaaldegaynaa maalintii dhalinyarada maalintii awoodda iyo kartida iyo waxqabadka waa maalin farxadeed dhammaan waxaan leeyahay hambalyo dadkeena inta maqalkeena iyo muuqaalkeena arkaya iyo inta dhalinyarada ah dadku dhan wada dhalinyaro laakiin kulligood insha Allah hambalyo daawadayaal waxaynu soo gaarnay guntii iyo gunaanadkii barnaamijkeennii 12 August sanadka 2025 maalinkii dhalinyarada adduunka maanta waxay ahayd oo u dabaaldegaynay awoodda dhalinyarada iyo wax urintooda iyo ka go'naanshiyahooda sameynta mustaqbal ifaya oo waara daawadayaal barnaamijkaas intaas ayuu inagu ekaa waxaynu daadihinaysay oo idinla socodsiinaysay anigoo ah Isra Ibrahim Aadan Israhabi waxaa garabkayga taagnada barnaamijka ila waday ilana iguna ahayd martiha Dr. Naciimo Sheekh Mukhtaar oo kamid ahayd haldoorka aqoon-yahaninta deegaanka ahna agaasinka hay'adda horumarka geeska Afrika ama horumarinta geeska Afrika
Horans Aid Organization daawadayaal barnaamijka intaas ayuu inooga egyahay intaan barnaamijka waxay ku kulmi doonaa aniga bahdayda waxaan idinkaga tegaynaa salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh